بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن داوديال meel kastoo dunida aad ka joogtaan soo dhawaada. qodobada barnaamijka ku daawan doonto xilliganna waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo 17 bishan ku kulmi doona magaalada Ankara ee dalka Turkiga. waxaa laga wada hadlayaa waa badii Soomaaliya ay xaq u lahayd. waxaan dul istaagi doonaa kulanka Ankara ka dhici doona 17 bishan waa kulankii ugu dambeeyay wuxuuna qayb ka yahay 3 kulan oo horey u fashilantay waana kulankii afraad. waxaan mid u dul istaagi doonaa qodobada miiska saaran oo ay Soomaaliya aqbashay inay wada hadal ka gasho Itoobiyana damaceeda sii kordhinay. qodobka koowaad uga bogan doontaa haddii ay Soomaaliya aqbashay wada hadal markii koowaad markii labaad markii saddexaad iyo markii afraad soo ma muuqato Itoobiya inay sii dareemayso in ay Soomaaliya jilicsan tahay. maxaa kalifaya in dowladda Soomaaliya xabashida oo wax aysan xaq u lahayn raadinaysa inay ka aqbasho 4 jeer inay la fariisato kala xaajooto waxay iyadu xaq u leedahay. barnaamijka ayaan rabaa inaan mid idinkugu dul istaago kuna faahfaahiyo hadduu alla idmo. رئيس وزراء إثيوبيا وحو ربا إن حلك كسي جوغو إثيوبيا وكبع دعيو إنو بد أود كوكيني إثيوبيا كنو حيث ذلكي إن أبي أحمد إنتو دونو وسي جوغي كرو طلبا إثيوبيا هدي وبد كورجين دونو أما بد إثيوبيا أي لا رحي قعنت أسوكلي marka waynu aragnaa danta ra'iisul wasaaraha Itoobiya danta dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ugu jirta inay la fariisato xabashida maxay tahay. dhinaca kale madaxda qaranka oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu horeeyo waxay mar walba ku celceliyaan Itoobiya damaceeda in aynan suurtagal noqonin oo ay iyagu wax walba ka hormarinayaan danta qaranka dalka iyo shacabka. aaway qabkeedii madaxweyne xasan sheekh maxamuud qabkii Soomaaliyeed aaway haddaad wada xaajood ka gashay badii Soomaaliyeed maxay tahay qabka aad sheegan karto iyo dowladdaadu qodobadaha aad mar walba ku celcelisaan ku salaysan Soomaaliya awoodeeda inay dhamaystiran tahay sidaa darteedna aan la aqbali karin damaca xabashida way isku kala waafaqi lahayd ummadda Soomaaliyeed way la yaabiyeen. waxaan barnaamijkayga intiisa badan marxaladaasi ayaan ku eegi doonaa. soo dhawaada channelka YouTube-ka Aftahan Production. haddii aad channelka ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamadda kamaraalka furo. haddaadan ku cusbayn oo horey ila joogtan waan kaaga mahadcelinayaa. daawadayaasha sharafta lahaa meel walba oo aad joogtaan waxaan leeyahay soo dhawaada muuqaalkana like noo saara. like-tu waxa ay kor u qaadaa channelka sidaa darteed ha iga baqiilin video inaad like saarto. soo dhawaada. dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa kulmi doona wejigii afraad. waxaa laga xaajoon doonaa bad ay Soomaaliya leedahay. nasiib darro ugu dhacdo wallahi nasiib darro. ma badaynayaan gorgortan kaga jirnaa ma maalin walba ayaan ummad Soomaaliyeed intaan la soo hor istaaga dhihi karaa badaynii wada hadalaan kaga jirnaa badaynii baan ogolnahay in aan wada xaajood la galno. dowladda Soomaaliya maxaa u diiday inay qab adeegsato waa la dhintaa ama waa la noolaadaa. sharaf ku noolow intaad nooshahay. haddaad dhimanaysana sharaf ku dhin. maxaa kalifaya inay dowladdu wada xaajood ka shamaro sidee ku aqbali kartaa? Nairobi baa lagu kulmay 1 jeer 2 jeer Ankara lagu kulmay waa markii saddexaad oo Ankara la isugu tagayo waa dalka Turkiga. dowladda Soomaaliya qaladkeeda rabaa markaynan ka bilaabo shirka dhici doona 17 bishan intaan u guda gelin. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa madaxweynihii Soomaaliya. Itoobiya qaladaad muuqda ayay madax banaanida Soomaaliya u geysatay. mid kamid ah raaligelinka ma bixin. hal qalad oo kamid ah kama aysan soo noqon. ma hayno meel Itoobiya ku tiri is-afgaradkii maamulka jabhadda SNM ee Muuse Biixi uu hogaamiyo ayaan ka noqonnay meelay ku tiri Itoobiya ma hayno. maxaa u diiday dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya kow inay tiraahdo inta aanan hortiina fariisan oo aan wada hadlin waa in qaladaadka dhacay 1 2 3 ay ka noqotaa Itoobiya. maxaa u diiday maxaa dowladda Soomaaliya u diiday
ما هي دولة الصومالية وإيه الله هاي قرارات كاسة كنقضة كدبا إدلا فريسانين هدي سنة تلاهدو أكتعي إثيوبيا قلالي كاغا نغنيسا هميغا إثيوبيا وايرانيا لكن أيضا لغو واحد قدبي حتى أقبشو إن أدلا فريساتو إثيوبيا واحد كورنيا هميغي أي كالاهيت maxay waxay ku ogaanaysaa inaadan qab lahayn waxay ku ogaanaysaa inaadan isku kalsoonayn warqaad qaawaro cad ayaa lagaa galay war madaxweynihii soomaaliya lagu xadgudbay isagoo intisaababa jooga war balaarag waad aragteen dhaqaaqa koonfurta soomaaliya ay ka wadaan maxaa loo waayey go-aan ay dowladdu tiraahdo ayadoo xitaa kala gamban dowladda turkiga inay tiraahdo war in aan wada xaajoonno ama aan wada hadalno waxaa ka horeeya badda anaa iskale qaladkii la iga galay halaga raaligelin halaga bixi halaga noqdo aan aragna Itoobiya oo leh is-afgaradkii Somaliland ama maamulka jabhadda SNM waa ka noqonay kadib ayaan dowladdu ku taageeri karnaa wax alla iyo wixii dhaqaaqay wado laakiin tani qab ma aha sumcad nooma aha soomaalinimay ceeb ku tahay sidee loo aqbalaya Itoobiya xoog ku rabta badeena oo waliba ku xadgudubtay madax banaanideena in aynu tiro ka badan 3 jeer la kulan xasan sheekhu waa naxariis xasan sheekhu sumcaddii Soomaali dhulka la gashay tani waa gunnimo oo ilaahay u ogyahay sidee ku dhici kartaa in Itoobiya aad la fariisato wafdigaaguna ay hortagaan iyadoo Itoobiya qaladkaasi muuqda naga gashay haddana dadka Soomaaliyeed waxay madaxda qaranka ku leeyihiin mar walba Itoobiya kama aqbalayno taaka ka mid ah dhulkeena inay qaadato warqabkaas aad sheeganaysaan oo khudbadaha ku sheegtaan maxaad u dhihi leedihiin idin lama fariisanayno ilaa qaladkii aad gasheen reergelin aad ka bixisaan ood ka noqotaan nasiib daro 17 bisha hadda waa 17 bisha aan ku jirno oo maanta 8 ah ayay aqbashay dowladdii Soomaaliya inay Itoobiya wada hadal badeena ku saabsan kula gasho magaalada Ankara waana wada hadalkii afraad qodobada miiska saaran muxuu yahay Itoobiya waxay leedahay bad aan leenahay ayaan rabnaa macnaheedu muxuu yahay is-afgaradkii musabixi inuu shaqeeyaan rabnaa sidee loola fariisan karaa dowlad 3 jeer saas ku tiri mar afraad see ula fariisanay bal arag madaxdeena qaranka meesha ay sumcadeennii iyo dadnimadeennii ku baabi'inayaan 3 jeer dowlad ku tiri bad aan leenahaan rabnaa sideed ula fariisanaysaa mar afraad bal Soomaaliyay arka bal Soomaaliyay arka 3 jeer bay Itoobiya tiri ka noqon mayno go-aankeenu muxuu yahay bad aan leenahaan rabnaa leenahay not kilo bad aan anagu leenahaan rabnaa weliba waxaan rabnaa bad aan anagu xulanno meeshaan doonnaan ka xulanaynaa Soomaaliya haddaan doonno gobollada waqooyi maamulka muuse biixi meeshuu hadda ka taliyo ama waxaan ka xulanaynaa gobollada koonfureed meesha aan ka rabno waa in nala siiyaa bad aan anagu leenahay maxaa dowladdeenu u diiday marka inay tiraahdo walaalaha turkiga waad mahadsan tihiin wada hadalka aad inoo furteen laakiin annaga Itoobiya la fariisan mayno qalad bay naga gashay gaf bay noo geysatay madax banaanideennay dhaawacday haddana hamigeedu waxay rabtaa bad aysan iyagu lahayn marka maxaa waqti nogala maraysaa intaas maxaa looga waayay dowladda dhexe allooda iyadaaba raalli ka ah marka dowladda dhexe ayadaa raalli ka ah in baddeennii Itoobiya qaadato maxaa yeelay qofkii dhihi waayey intaa keliya waxay la micno tahay qof raalli ka ah Itoobiya qaladaadkay geysanayso ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu wataa go'aan ummadiisu rabaa inuu yiraahdo war bad baan idin keenayaa Itoobiyana baday u baahan tahay sida darteed iga leexda aan kursiga joogay meel oo raacay leedahay go'aanka Abiy Ahmed maxaa yeelay ummadiisu qancinaya annaga maxaa madaxdeena u diiday inay annagana qanciso war badeena u hiiliya annagoo diyaar u ah inaynu garab istaagno dowladda dhexe dagaal ka dhan ah ee Itoobiya laakiin saama lagu garab istaagay mamnuucan ma qabkii iyo sharaftii Soomaalinimo dhulka lala sii dhacay miyaa ku garab istaagayna ala kulli xaal
nasiib darrada lagu dhacday mar afraad ayaan etoobiya la fadhiisanaynaa ayadoo etoobiya go-aankeedu uu cad yahay annaga go-aankeennina ma cadda markaasaa waxaa lagu leeyahay wafdiga dowladda soomaaliya waxay iska diideen go-aankii etoobiya iska diideen annaga maxay noo kordhinaysaa iska diideen war haddaad wax diidaysaan hadda diida hala fadhiisanina war haddaad wax diidaysaan shalay maxaad u diidi weyseen intaana la fadhiisan war waa lagula fadhiistay war waa lagula kulmay war kulanka hadduu fashilmo xitaa micno soo kordhin maayo badda adaa iskale horta ma ogtihiin kulanka etoobiya soomaaliya wadahadalkii baa fashilma marka lagu leeyahay laba goor-aan baa adaa eemaysa maxaa yeelay badda laysku haysto adaa iskale war maxaa diiday go-aan cad oo dowladnimo in ay qolada muqdisho ay qaataan kadib waxay qiilkaaga dhigayaan axmed macalin fiqi wafdigii uu hogaaminayay hee waxay iska diideen go-aanka dowladda etoobiya ay wadato waa iska diideen taasi guul maaha marka waxay ku soo kordhaa wadahadalkaasna insha allah waxaan idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla imo intaynu barnaamijkaan mid namida ku kulmi doono waa balwaano idin leh meel kasta waa joogtaan nabadgelyo